والله امتحانka si habsameel noogu socdaa waxay la mideeyay oo la soo keenay muddo adiga ilaa iyo dhowr sano ilaa 3 sano iyo 4 sano inta u dhaxaysa ah runtii imtixaanku wuxuu noogu socdaa si habsameel waan ka filaynaa inuu natiijooyin fiican ay ka gaaraan ardaydu anaguna aan markaa talantiga ka soo bixi doona hadii la yiraahdo imtixaanka aadaan ugu faraxsanahay wax muddo juhdi badan oo muddo badan aan soo bixinayay maanta inaan ku gaaro meel fiican aan ka soo baxo jawigiisuna aad u wanaagsan yahay si fiican oo degan oo nidaamkiisu saxan yahay oo kala dambeyn leh una noogu socdaa imtixaanka waan ku faraxsanahay dhamaanteena farxad ayaan ku galeynaa امتحاناتku naqliga dawladda federaalka Soomaaliya anaga ku dhiyahay hadii la ku reebo Puntland iyo Somaliland inta kale imtixaan midaysan waaye marka baydhabana waliba nasiib weelata in sidii goobad ku mid ah imtixaanku ku dhiyay iskoolkana wali nasiib weelada in iskoolka imtixaanaadka la qaado usoo ka mid nagada maadaama uu ay iskool farista magaalo oo meel raayis meel abni faylana ka taal iskool baaxad weyn iyo nasiib weeldani sanadkii saddexaad uu nasiib weeldadaano intii iskoolkan imtixaanka la qabada haddana waliba ku qayb galahayta ilaa tiro 260 arday imtixaan bay baan aragay sifayla waana may baan malay intii uu ku guuleysado doona gobolkuna kaalanti daraan ee kan koowaad buntii naqdo doona Soomaaliya aan rajay guud ahaan Jubbaland waxa u fariisanaysa 645 arday dugsiga sare imtixaanka shahaadiga ah waxa lagu kala sameynayaa dhammaan deegaanada xorta ah ee dowlad goboleedka Jubbaland halka aan joogno Kismaayo waxa lagu sameynayaa laba xarmood tirada ka qayb galaysa imtixaanka dugsiga sare ee degmada Kismaayo kaliya ana waxa weeyaan 470 arday sanadkii hore markii loo barbardhigo waxaad moodaa inay aad u kordhay tirada ardada imtixaanka u fariistay sanadkan halkii sanadka hore ka qayb gashay imtixaanka dugsiga sare 370 arday sanadkan waxa ka qayb gashay 645 arday sidoo kale markaad fiiriso ka qayb qaadashada waxbarashada ee gabdhaha waxaad moodaa inay isbedel weyn ku dhacay sanadkii hore xagga ay 130 gabar kale inuu fariistay imtixaanka sanadkan ay inuu fariistay 220 iyo dhowr gabdhood imtixaanka u fariisanayaan